إيمانك شيء قرا لجو قبوا باين الرحمن كقول كيف ما صار مقايبة قول كيف فردوسية كنو قرصن وليجية قانقار هدي آتيهين قرا لجو بيري وحيجنا قيمها كسرن قرصك يلاشا قرآن كي يسونها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديجودا نبرتي سيدا وحلاقه أو تفسير كوال لجو قيافر قلوب تينا قيامة حقي ساد أوان لوق القلياء تدي وقادر كيني وعنا قات أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قصة النبي آدم صدح خلقي بها ميشا يالا وصدح قلاء أيها كورها من ساق قصاص قلوا وملائكتي لها يوم ما بالها وح شرع خير مويان قلوا الله بعدنا وحويان إبليس يعول كيسو ما بالها وح خيرا شر مويان قلوا الصدحاتنا وأيه وإنجا وهذا مية حواي نصه الرئاسة الكينية لا سينو دحينا كلام بيدو بين قنيس هدي عاد إلهي كتلقى هذا نيسو سبحانه وتعالى أولياء دي سنة كم تهاي أيان كاجونا في عينها أو المرين في عنا هذه ليسو وحدوه ليس ملايكت إن عونا أحسن مديكت أيات راعي سحوتشي نيسا وتكبي رئيس هدي قفك وياي قف حن أردين عيش شرك وقالب نقضينا صفك إبليس بقدر مياه marka digniintu waxay u taagantay safka ibliisa ku darminay saddexda qolaa taagan safka malaa'ikta iyo awliyada ilaahay iyo khalqiga ilaahay amarka ka qaat ku biiro ku darma halkan waxa timid ilaahay oo la hadlay malaa'iktu waa abuuray subhanahu wa ta'ala wuxuu ogeysi u sheegay inuu dhulkan dhexdiisa ku abuurayo khaliif ogeysiintani ma aha inuu ilaahay u baahan yahay malaa'ikta oo dileeyahay igala taliya la oo ma baahna subhanahu wa ta'ala khalqigiisa لكن وإعلامين وأوجيسين استشارة إلهي وما باهنا وحبك ما قرصونا إني جاعل في الأرض خليفة أرجع خليفة صدح معنا أيو قارن كرابي لنا علماء خليفة يخلف بعضهم بعض والضد يجو استدلوا قرن مركو تجا قرن كلا نحله أو استبدليه نلاشوا سيا وصعد أما هو خليفة ويو عدي هراء كو أبورنا هالكن دول كمركا كو أبورنا ولا ذي دونا ينها هذاني عد بدشه ودول كي عمرت أما هو خليفة شرعي إلهي الدين إلهي عد وكيل كجن نقطة إلهي الدنيا ده كنا قاتش سو فلسه وإلهي مركو كتبتي سكانه وحي يسوي شرعي يسوي صوت تشيو عدي مامل كنا قلنا هيدا وناقة كوه كامل له marka halkaana waxay adduunyadii u taagan yihiin oo loo xil saaray ma bani aadam inay adduunka hogaamiyaan iyo noolaha kale si sax ah u hogaamiyaan khalifa yaani aasha soo qaadan kara malaa'iktu ilaahay su'aal bay weydiiyeen su'aashani ma aha mid caaridada malaa'iktu caynka baa laakiin cilmi bay doonayaan waxay yiraahdeen ilaahay oo ma waxaad ku abuuraysaa dhulkii qaar fasahaadiya oo dhiiga daadiya iyo annaguna wanaaguna aanu la taaganay وحمدك هي التصبيح هذا هي التقديس هذا وسبحان الله والحمد لله أيان لا تاجنا وواكو أمانينا لهي بحوجو جوابي وحنوجه هي وحيدان وجين وحيس ويدين له ملائكته مركز سؤاشن إلهي ويدين يان حكيك أوجادين إن خلق جاني أي سيدا يالي دوران يجاب الشيء وحيدان لا علم لنا إلا ما علمتنا إلهي يوم بأوش شيء سبحانه وتعالى هو رب الشيء وبيسيه waxa kala xusid badan dhulka oo la fasahaadiyo malaa'iktu way sheegeen oo de bani aadamku macsiyo iyo gaf ku fasaadinaya laakiin dhiigiiba wixii wax lagu fasaadinaya mid gaar ah oo kamida gaar loo soo qabtay wayasfiku dimaa oo daadinta dhiiga taas waxay cadeynaysaa deelan culimadu waxaan la yiraahdaa dhiiga daadintiisu inuu yahay fasahaadka u weyn ama dhibaatada ugu weyn ee dhulka laga geysto oo wuxuu u dhigmaa ama la mid yahay muqaddasaad kala baabiyo xaramka ilaahay oo la fasaadiyo la xumeeyo iyo kacbada oo la dumiyo waxa la mid ah dhiiga qofka muuminka ah oo la daadiyo wa kaamaan raqiiska noqday ee dadkii muslimiinta dhiigoodii la daadinayo waxyaabaha caalamka lagu fasaadiyo ugu daran buu kamid yahay saadaradeed ba si gaar ah ay malaa'iktu ugu cayimeen
ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxaan ogay waxaydaan ogeyn waa run cilmiga addoomuhu wuu kooban yahay alla wuxuu uhi wafawqa kulli dii cilmin caliim mid waloo cilmi laba mid cilmi laa ka sii sarreeya oo ka sii sarreeya cilmigu ilaahay buu isugu buya shubmaa subxaana wa tacaala saa daraaddeed bay habboon tahay qofku inuu caadaystay ereyga wallaahu aclama nebi muuse reer banu israa'iil ku yidhaahdeen man aclamu nnaas isagoo khudbad akhriyaya dadka yaa u cilmi badanoo aniga buu dee waa tii laga raacay halkaa kooras dheer baa loo diray waa tii khadar indhaha loo geliyey ee intaasoo jeer uu ku soo saaray waxaanu garanayn ee markii uu dambe u fasirayna uu arkay inuu yahay wax dee uu ku qancayo wallaahu aclam macnaha waxay sheegaysaa insaanku waxaad iyo jeer u asala jahli baa u asala ma cilmi baa u asala qofka bani aadamka mise jahli baa u asala ma daliilu calaa dalik innahu kaana daluuma jahuula naftiisana uu dulmiyayaa qofku jahuul weeye waa mid jahli badan weeye culimadu waxay yidhaahdaan ka hadla aadaabta cilmiga loo barto markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan alcilmu halaaثatu ashbaar cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibri اlأwali takabara qofka taakada u horeysa qaadaa wuu isweyneeyaa waman dakhala fi shibri الthaani tawaadaca qofka taakada labaad qaadaana wuu isyaro gaabiyaa oo wuu joogsadaa waman dakhala fi shibri الثaaliثi calima annahu maa yaclam qofka taakada saddexaad qaadaana jahligiisu arkaa macnaha markaad wixii si kale haddii loo dhigo qaybta nidaamiga waxbarashada markaad eegto qofku markuu secondariga marayo murankiisa iyo jaafaajiriqiisa uu badanaya ama hadduu xalqadda joogana kutubta yareere bilowga markuu akhristo qof walba uu la murmaya waa takabara markuu digriga qaato jaamacadda ka baxana dib buu u joogsanaya PhD-da markuu qaato markaasuu markaasay gaashaanku ku soo gaabanaya markaasuu arkayaa jahligiisa marka la yidhaahdo wixii la dhigaya waa lagu dhameeya adaa lagu sugayaa laabudda an takuuna baaxian waa inaad noqotaa mid maktabadda wax ku soo kordhiya ummadda cilmi ku soo kordhiya adaa marti lagu yahay oo lagu eegayaaye maxaad haysaa dee madaxuu xoqonaya markaa dib buu u fadhiisanaya marka waxay culimmadu yidhaahdeen iyaaka an takuuna saaxiba shibri waxaad inaga ilaalisaa inaad noqoto taakoole kaa taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxaynu odhan karnaa beryahan dambe taakadaasa ayna wareerisay siiba daayarta kaasaa iclaamkan iyo warbaahintan markii la helayna qofkii oo iska bilow muftibaabuu isu dhigayaaba markaasuu ka sii daynayaa taasi waxa weeyaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm almuhim masaladaas waa masalo kale laakiin waa inaynu ogaanaa cilmiga inaynu baahina u qabno oo aynaan ka dhargayn manhuumaani laa yashbacaani daalibu cilmin wa daalibu dunya laba ka kani ama mamani ma dhargaanoo qofka cilmi doonaya iyo qofka maal doonaya saan maalka looga dhargin cilmigana loogama dhargo innii aclamu maa laa taclamuun marka addoomuhu laba arrimoodba waa inay caadaystaan in shaa allah wallaahu aclam labadaasiba waa muhiim tallaabooyinka mustaqbalka in shaa allahu in shaa allahu in shaa allahu ha kugu badato iyo wallaahu aclam wixii aad sheegaysaba nebi aadam calayhi salaam malaa'igtii waa kuwan yidhi maxaad ka abuuraysa isagiiyo awlaaddiisa ilaahay baa markaa wixii ogaabuu doonayaa inuu u muujiyo oo nebi aadam wuxuu baray magacyadii oo dhan kullaha uma caradahu marka magacyadaasi waxaa la barayaa shay walba iyo magaciisa shayada waa ismigii iyo musamayaadkii magacyadii iyo wixii magaca loo ahaa oo uma caradahum wuu soo bandhigay muxuu soo bandhigay waxaa la soo bandhigayaa waa shayadii magacyada lahaabaa ilaahay uu soo bandhigay subxaana wa tacaala malaa'igtii buu soo hordhigay wuxuu ihi bal waxyaabahan ina hor yaalla magacyadooda ii sheega marka shayadaa halkan la soo dhigay culimadu waxay leeyihin waa shayada ay u baahan doonaan bani aadamku adduunyadan ilmo bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay oo malaa'igtii uu hor keenay nebi aadam hor keenay magacina way wada leeyihin waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin culimadu luqadda iyo magaca yaa dejiya waa masalo khilaafiya laakiin sida raajixa waxa weeye inuu ilaahay dejiyo subxaana wa tacaala luqadaha yaa u bixiya dadka ilaahay baa u bixiyo baraa siduu shay walba u abuuray buu luqadiisiina isagu abuuray
marka haddii xataa dadka qaarkood meel la isugu xareeyo gaara luqaday la baxayaan ilaahay unbaa bara subxaana wa tacaala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfada ha u yeeshaane laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay sida halkan baa aynu ku arkayno waxaad ka arkaysaa ilaahay inaan waxba ku adkaanin subxaana wa tacaala maskaxdaada yare liidataha odhanin oo waxaan o dhan ilaahay talo halkuu ka soo guray haddana markii dambe halkuu ku celiyey dee ma waxbaa ku adkaada waxba kuma adkaada rabbi ila waa taa hore uu kugu soo sheegay wahuwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa karaa wax walba uu ogyahay anbi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu waxay yidhaahdeen markaa malaa'igta subxaanaka ilaahay adigaa xumaan ka hufan laa cilma lanaa cilmi ma lihin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay mooyaane innaka adigu alcaliimu alxakiim mid cilmi badan baa tahay xikmadna leh qaala markaa ilaahay wuxu uhi yaa aadamu nebi aadamow anbi'hum biasmaa'ihim malaa'igta waxaad u sheegtaa shayadan magacyadooda anbi'hum biasmaa'ihim falamaa anba'ahum biasmaa'ihim markuu malaa'igtii u warramay oo uu sheegay shayadii magacyadoodii qaala ilaahay wuxu uhi alam aqul lakum oo miyaanan idinku odhanin innii aclamu anigu waxaan ogahay qayba asamaawaati walard waxa maqan ee samooyinka ku maqan iyo dhulka waxa ku maqan baan ogay waaclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxa aad muujisanaysaan wamaa taktumuuna iyo waxa aad qarsanaysaan labadaba waan ogay sawtaan idiin sheegay saasaa ilaahay uu ku yidhi subxaana wa tacaala marka halkaa mustafaadaadka aynu qisadaa ka qaadanaynaa waxa weeye ihbaatu lqowli lilaahi subxaana ilaahay qowl buu leeyahay xarfa leh codna leh waa inaga akhriyayna waa kalaamkiisa sida dadka qaarkood ama firqadaha qaarkood oo leexday ay yidhaahdeen ilaahay kalaamkiisu daatadiisa ama isagunbu ku qotomaayo ma soo gudbin taasi sax maaha ilaahay wax walba inuu falo oo waxba aanay ku adkaanayn baynu halkan ka arkaynaa facaalun limaa yuriid laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun waxba kuma adkaadaana wuxuu doonu sameeyaa idina waxba weydiin karto malaa'igtu waa caalam haybiya waa qaybka inaga maqan bay ka mid yihin waxaynu ka rumaynaynaa inta waxyigu inooga sheegay waxaan waxyigu inooga sheegin kama rumayn karno ama kama odhan karno nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dee inay nuur laga abuuray halka jinki iyo shayaadiinta naar laga abuuray shayaadiintii abaaliista iyagana nuur baa laga abuuray innagana ciid baa laynaga abuuray siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam maqarkooda iyo xaruntooda ay degan yihiinna waa caalamka koriyo sabada xikmadda ilaahay waxay keentay bani aadamku inay sidan u farcamaano waana xikmadda guurka loo jideeye wey guurka waxaa loo jideeyey inuu dadku tarmo oo khaliifa ay kala noqdaan ay istabahayaan waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa dadka adduunyadan ku nooli in madaxdu ay lagama maarmaan u tahay oo waxa fawdo la yidhaahdo iyo madax la-aan aanay ku soconayn masaa'ilka muhiimka ee muslimku uu aaminsan yahay bay ka mid tahay inay yeeshaan madaxdaasina ay u wanaagsanaato diin iyo dunyabana ay u hagaajiso waxa fawdada la yidhaahdaana waxyaabaha lagu halaagsamo wey waxaynu halkan ka arkaynaa qofku haddii uu wax shay wanaajinayo inuu sheegaa inaanay ceebaan lahayn ceeb ma leh oo malaa'igtu halkan waxay yidhahan wanaxnu nusabixu bixamdi wanaaggii ay qabanayeen ayuunbay sheegeen laakiin waxaanay ogeyn oo xikmadahoo meesha ku jira ayaa rabbina halkan u sheegay oo u caddeeyey sharcigu wixii uu inoo sheego waa inaynu qaadanno wax badanoo danteennaabaa ku jira oo aynaan ogeyn aynu heli doonno marka aynu raacno waxaynu halkan ka arkaynaa fadliga iyo sharafta uu leeyahay cilmigu oo nebi aadam calayhi salaam dee mucallim buu noqday malaa'igtiina arday bay noqdeen marka ibnu kaiir raximah llahu siduu leeyahay waxaa halkaa ka muuqanaya buu ihi inuu dee mucallinka ardayga ka fadli badan yihin soo ma ardaydii kol hadday malaa'igtii arday noqdeen isagiina mucallim uu noqday fadliga nebi aadam cilmiga uu ku fadli badan yahay baa ilaahay halkan uu ku muujiyey addoommaha qaarkood inuu ilaahay cilmi dheeraada siiyo aynu arkayna oo khalqigu de xagga cilmiga waa ku kala fadli badan yahay awliyada ilaahay iyo saalixiinta oo wanaagsan waa kaa nebi aadanba ka fadli batay malaa'igtii xagga cilmiga
imtixaanka shayga la yidhaahdaa wax iska jira wey oo qur-aankuna wuu ina barayaa dhaqanka nebi maxamedna wuu ina barayaa calayhi salaatu wasalaam imtixaan baa laga qaaday nebi aadam iyo malaa'igtaba nebi aadam baa ku guulaystay saasoo kale uu tartanka uga qaadaya imtixaanka nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ardaydiisa iyo dee asxaabtii qofka bani aadamka waxa u habboon inuu naftiisa garto qadarkeeda oo aanu isqaadqaadin qabna isu yeelin waxaanu garanaynin aanu isku qaadin waayo malaa'igtu way isdhiibeen markii ilaahay uu ku soo saaray arrintan iyo nebi aadam cilmigan uu siinayo waxaynu ka arkaynaa malaa'igtu siday ilaahay u weyneynayaan subxaanahu wa tacaala iyo erayaday ku jawaabeen qiimaha ay leeyihiin sifaadka ilaahay bay ayaa aayaadku ay noo caddaynayaan alcaliim alxakiim oo inoo muuqanaya waxaa markaa ilaahay u gudbay arrin kale oo iyaduba ah imtixaan qaala allahu tacaala waid wakti xus nebi maxamedow qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu liaadam nebi aadamu sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ka la yidhaahda mooyaane abaa isagu wuu diiday wastakbara wuu isweyneeyey wa kaana min alkaafiriina gaaladana uu ka mid ahaa waqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta wa zawju adiga iyo xaaskaagu aljannata jannada dega wa kulaa minhaa jannada waxaa ka cuntaan ragadan cunitaan waasica oo ballaadhan oon xad lahayn xayثu shi'tumaa goortaad doontaan iyo meeshaad doontaanba wax ka cunaa walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedan fatakuunaa min aaalimiina waxay idinka mid noqon doontaan kuwa dulmiga sameeyey faazallahuma shaydaanu shaydaankii wuu ka soo simbirixiyey canhaa jannadii buu ka soo simbirixiyey wuu ka soo tuuray faأkhrajahumaa wuxuu ka soo saaray nebi aadam iyo xaawa mimaa kaanaa fiihi barwaaqadii iyo khayrkii badnaa ay ku dhex jireen buu ka soo saaray wa qulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi ihbiطuu dega bacdukum libacdin qaarkiinba kuwa kale cadow baa isu tihiine dhaafa halkan walakum fi lardi dhulkana waxaa ku leedihiin mustaqarun meel aad degtaan wa mataacun iyo xoogaa raaxo ah oo ku raaxaysataan oo ku casuumantihiin ilaa xiinin inta aa adduunka joogtaan markaa ku waari maysaana intaasaa ilaa intii muddo kaaho inta dhimanaysaan imtixaankan bilaabmay waxa weeye nebi aadam ayaa la faray inay u sujuudaan malaa'igtii malaa'igtu ilaahay amarkiisun bay qaataan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yumaruun waa khalqi u taagan inay ilaahay adeecaan oo aanay caasiin saynu horeba usoo xusday waxyigana ka arkayno sujuuddaasi la faray waxay dhinac ka tahay sujuudu tashriif dhinacna cibaado dhinac waxay ka tahay tashriifoo nebi aadan baa ilaahay uu ku maamuusaya dhinacna cibaaday ka tahayoo dee ilaahay amarkiisii baa la qaadanaya ilaahay amarkiisa kii diidayna inuu gaaloobay baa ilaahay u tilmaamay wa kaana min alkaafiriin marka ilaahii sujuudda lahaa ayaa yidhi aadamkan u sujuuda marka nebi aadam lama caabudaye ilaaha amarkiisa la qaatay ayaa la caabudaya idan markaa dhinacaa cibaaday ka too amarka alleh mar haddaad qaadato waa cibaado dhinacna waxay ka tahay sharfidoo nebi aadam ayaa ilaahay uu ku sharfaya sujuuddaas in loo sujuudo innaga sharcigeennan cid aan ilaahay ahayn sharcigeennu wuu diiday sujuuddan horta waa maaha sujuud linxinaa sujuud foorarsiya maaha oo qofku foorarsanayo laakiin waa sujuud fooda la dhigayo faqacuu lahu saajidiin sujuud u dhaca buu ilahay yihi subxaana wa tacaala sujuud u dhaca ama waabay sujuudeenba
markaas in cid kale loo sujuudo oo khalqiga ka mid ah waa la diiday sanab looma sujuudayo bani aadam looma sujuudayo madaxna looma sujuudayo asxaabtu ridwaanullaahi calayhim markay soo arkeen nimankii gaaleeda boqorrada ahaa boqorradii reer yurub iyo reer eeraan iyadoo loo sujuudayo dee nebiga waxay ku yidhahdeen adaaba ka fadli badan maan kuu sujuudno maya anigu addoonkii ilaahay baan darajadaa in la idhaafiyana ma jecli sujuuddii halkaasay ku hakatay marka cid madaxa loo fooranayo iyo cid fooda loo dhigayo labaduba halkaasay ku hadheen laakiin ilaahii sujuudda lahaa baa nebi aadam yidhi ha loo sujuudo subxaana wa tacaala ibliis baa isagu isa soo taagay ibliis waxa uu ka yimi meeshuu joogaa oo isaga laftiisana dee khalqigaa ilaahay wax ku tusayaayoo malaa'igta ayuu goobtan la joogaa ilaahay baa xikmad ka leh waxa uu halkan u keenay oo waa kaa dee aynu casharada iyo duruusta iyo cibrooyinka ka qaadanayno isagu meeshuunbuu ka soo boodayoo amarkuna wuu ku jahaysnaa markii la yidhi sujuud isagu wuu diiday istinuu mutasilna wuu noqon karaa munqadicna wuu noqon karaa waa laba macnoo kala gaar ahoo mustathnaa iyo labada shay la soo kala reebaya markay isku qolan yihiin waa mutasil baa lahay hadday kala qolan yihiinna waa munqadic baa lahay waxaad isweydiinaysaa talow muxuu sujuudi waayey markaa ilaahay baa ka jawaabay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin su-aashaadii saddexdaasaa laga jawaabay cudurdaar muu lahayn ma maqnayn muu xanuunsanaynin muu hawlaysnayn laakiin wuu diiday waanu kibray gaaladana wuu ka mid ahaa marka ayadda waxyaabaha inoo caddaynaysa waxaa ka mid ah cudurrada ibliiska ku dhaco waxaa ka mid ah ilaahay oo la diiday subxaana wa tacaala cudurrada ibliis uu leeyahay ee bani aadamkana soo gaari kara ku dhici kara diidmada ilaahay la diidaa waa shaqo ibliis kibirkuna waa shaqo ibliis waxaana labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo qur-aanka ilaahay muxuu ku yidhi markuu hadlayay wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin dee anaaba ka khayr badane ka khayrka badani miduu ka khayr badan yahay siduu ugu sujuudi karaa markaa wuxuu keenay qiyaas iyo daliil caqliya oo daliilkii ilaahay ka hor jeeda oo faasid ah wa kaana min alkaafiriina waxay caddaynaysaa gaaladu ka mid aha kaana min aljinnina way jirtay fafasaqa can amri rabbi malaa'igta kamuu mid ahayn ayaa halkaana ka muuqanaya inaanu malaa'igta ilaahay ka mid ahayn ibliis allaciin waxa markaa aayaddu ay noo tilmaamaysa qur-aankuna meelo badan xusay cadowga koobaad ee insaanku uu leeyahay inuu yahay maxay kaa aabbaheen weerar ku soo qaaday ibliis la yidhaahdo ina shayطaana caduwun lakum faاttakiduuhu caduwan shaydaanku cadow buu idin yahay cadow ka dhigta ayaa ilahay wey nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii xaawo ilaahay digniin buu siiyey ibliis baa looga digayaa innagana waa la inooga digay digniintaasina way soconaysaa qofkii qaataana wuu guulaysanaya kii kalena waa guuldaraysanaya ilaahay wuxuu nebi aadam iyo xaawo jannadii dega baa layidhi uskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega jannadaasi waa tee ma janno ku meel gaara bay ahayd mise waxay ahayd jannatu lkhuldi tii lagu waarayay qowlka culimmadu u badan yihiinna raajixa waxa weeye waa jannadii lagu waarayay ashaasaa sheegaysa cahdi waa cahdiya waa janno la isla ogyahay waa ta qur-aanku ka warran waa ta qiimaha badan wey ilaahay ma caameeye subxaana wa tacaala addoommaha meeluu ku soo reebay oo uu ku caameynaya maaha waa meel ay ku barwaaqaysnaana waa jannadii asalka ahayd wey jannadaasaa la yidhi deg adiga iyo xaaskaagu xaaskiisu dee waa xawa qur-aanku magaceeda ma cayinin laakiin waa xawa weeye xaawiyey ku abtirsata xaggay ka timi dee nebi aadam wakhalaqa minhaa zawjaha iyada unbuu isagunbuu ka abuuray iyada muran iyo jaafaajiriq ma keeni karnoo ma odhan karna tii laga abuuray dee siduu u guursaday dee ilaahay waxna xalaalaynaya waxna xaaraantinimeynayay ayuunbaa intuu ka abuuray islaan uga dhigay iyo oori aadam ubadkiisuba cid kale ma haynine diintii hore kumeelgaadh bay ahayd oo waa la isguursanayay oo carruurtuunba xalaal isu ahay markii dambe dadku batee la kala durkay ayuunbaa laysu taltallaabay naskhi baa la yidhaha wax naskhi diimihii hore samaawiga ahaa naskhi bay lahaayeen markaa kolkii dadkii batay baa waxaa la nasakhay guurkii walaalaha التحليل والتحريم حق له تعالى حلالينتي حارانتنمينت وحق إلهي اسكا ليه إنه أمر كيسو بينو قادنا إله
mar walba wixii uu inoo sheegun baa sax waxaa halkaa ka muuqanaya ninna inaanu xaas ka maarmayn oorina aanay ninka maarmayn haddii ay markaa kala maarankaasi jiro halkiisuu iska wardiyi lahaa nebi aadam odaygaasi islaantaa uma baahdeen aabbaheen iyo hooyadeen marka waa duruufu xaas la-aantu waa duruuf dhallinyaro allah idin sakhiree waa duruuf idin hayse un xaas la-aantu waxay yidhahdaan culimada axkaamtu faqiir yaa la yidhaha bayna faqiir alfaqiiru man laa zawja lahu bayna faqiir waxaa la yidhaha qofkaan xaas lahayn baarkinba male shandadba male meel wax ku ritaba male hadduu caawa awr qasho wasladunbuu ka cunaya u dhaqaajiyey laakiin dee hadduu xaas leeyahay imise weel baa loo buuxinaya marka ku dadaala guurka inaynu fudaydinno oo caqabadaha hor yaalla ee habluhu hordhigayaan ama wiilashu hordhigayaan ama waalidku hordhigaya ha laga qaado qaar khayr lena allah idiin sakhiro ama allah ina wada sakhiro waaye taasina waa taa weeye waa mulaaxado kaloo jira waayo insaanka asalkiisi oo nebi aadama ooridaas u baaha meel kale lagama keenina isagii baa laga jeexay saasaa markaa noloshu ay ku bilaabantay guurkuna waa sunnada nolosha sunnada iyo habkay noloshu u soconayso ay ku soconaysaa waa taranka khaliifa dee taranku wuu go-i lahaa markaa maqaasida iyo ujeeddooyinka guurkay ka mid tahay inay dadku tarmaan siduu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam taranka badiya waa la isu faanayaa ambiyada ilaahay baa isu faanaya maalinta qiyaamaha jannada deeqda taallaa waa mid ballaadhan laa maqtuucati walaa mamnuuca waa kulaa minhaa ragadan xayu shituma xayu shituma meeshaad doonaysaa waa cunitaanku waa waasac busaarad ma laha xad ma laha diiqad ma laha way waasac weeye laakiin waxaa la geedkan ha u dhowaanina ha u dhowaanina waxay sheegaysaa hafalin bay ka horeysaa waayo xaaraanta haddaad u dhowaato waxaa sahlan inay nafti iyo shaydaanku kugu riixaan waa kii nebigu tusaalaha bixinaya oo seeraha xidhan xoolaha lama agdaajiyo way u dhacayaane marka waxyaabaha nafta aad ku kalifaysa waxaa ka mid a inaad xumaanta iyo xaaraanta ku yara ag warwareegtaa tidhaahda me anigu waan iska adaga waxba iskama adkida ibliis baa kaa adkaan doonee ha u dhowaanin meelaha dabku ka baxaya dabka xaaraantu meeshuu ka baxayo waa qaawanaanta iyo meesha wax lagu cunee xaaraanta lagu cuno iyo dalkeeda iyo dadkeeda ka durug si aad u nabad gasho waa kaa walaa taqrabu zinaa soomaad arag zinada ha u dhowaanina halkana geedkan ha u dhowaanina sababtii iyo waddadii baad haysaa kol haddaad xaaraanta ku dhowaato uumigeedii baa kugu baxaya dabeetana nafti waa daciifa way iska xejin marka dambe way kula soo kacaysa walaa taqraba haadihi shajara geedku muxuu ahaa dee qur-aanku ma cayimin geedkaasi magacyaa ragga qaarkood u sheegaa magac mar haddaanu qur-aanku u bixinin dee inagu uma magac bixinayna waa geed la calaamadiye wy fatakuuna min aaalimiin shaydaankii wuu ka guulaystayoo wuu simbirraxiyey quraada qaarkood baa qiro sugan akhriyaya faazaalahumaa isaaladu waxa weeyaan wuu durkiyo waa ka saaray meesha waa isku macnuun bay noqonaya iyo wuu simbirraxiyey simbirraxay noqonaysa qofku markuu macsiyada ku dhaco wuu simbirraxday waxaa taqaanaa qof soconayo simbirraxdayna inuu adhaxda ka jabo u dhow yahay waa halaag waxyaabaha lagu halaagsamooye فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه موصول كاسوح التلمامة يلا إذهامي إلا وأسماء ذي مبهم كهيدة وحي وينا براره يبرواقضي أي هيستين أيو كسور الحصار يسيدوا قصوا صارين آيات دي هرين سورة الأعراف أي آخرين وحول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سياه سورة طه ma ku tusiyaa geed marka la cuno waa la waaraya weligaana adiga ayaa iska yeelanaya calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla waad waaraysaa insaankuna aad buu jecel yahay labadaa inuu wax badan helo kuna waaro oo imika inuu boqortooyo helo xoolo helo ka dhima aad buu jecel yahay qof haddaad u timaado imika maalqabeen ama madaxa ducada uu ugu jecel yahay waxa weeye maxay adaala allahu cumrak cimriga allah ku dheeray waari maysidaasaan u jeclayn allah noo kaa daayo buu jecel yahay allah ku daayo ayuu jecel yahay ninkaasi si gaar uga warhaynaya haddaba la daynba maayo uu dhimanaya marka siyaabaha bani aadamka dabeecadiisa waxa ku jira ku abuuran inuu waxna yeesho kuna waaro
laakiin taa jannada lagu helaya inaga hore soo aragnay waxa halkan ka muuqanayaynu arkaynaa waqulnaha bituu bacdukum libacdin cadow jannadu way sarraysaa waa caalamka kore wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun samada waxa saaran buu ilaahay yidhi arsaaqadiinoo ka imanaysa iyo jannadii la idin yaboohay naaruhuna dee way hooseeyaan iyaguna asfala saafiliin damiirka ayaa lagula hadlayaa jamaca ihbituu bacdukum libacdin cadow waa ibliis waa aadam waa xaawa weerarka u horeeya ibliis baa haya oo wuxuu ku hayaa aadam xaawa iyo caruurtooda iyaguna cadow bay isu yihiin oo adiga arko ilmo bani aadam dee way isku taagan yihiin oo way isku foogan yihiin mar haddii jannadaa la soo dhaafay xarbigaas iyo dagaalkaas inta adduunyada la rogayo uu soconaya cadaawaddaasaa soconaya walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin dhulka noloshan lagu nool yahay waa istiqraar bay leedahay dadku inta ay ku nool yihiin dhulka istiqraar bay leeyihin deganaansho mustaqar soo maha laakiin haddaynu meelaha kale kawaakibta ka baarbaarano sidanay gaaladu yidhaahdaan meel kale lagu noolaan karaa jira laguma noolaan karo istiqraar ma laha meelaha kale hawadana kuma noolaanaysid dad baa badaha dega sida China iyo marka dhulkii buuxsamay xaafadaha badda laga jeexay nagu dhul way baynu iska xidhanaa Soomaa dad baa dhulkiiba ka dhamaado markaas ay badaha degan istiqraar ma leh inkastoo badda ay ka mid tahay dhulkii laakiin haddana way si kala fiican yihiin wa mataacun ilaa xiinina waxay tilmaamaysaa noloshan adduunyada waa raaxo mataacal xayaati dunya waa raaxo kooban oo ayaama leh ilaa xiinin laguma waarayo haysilaawi yeeshu ma jannadii ana casoobi waa raaxo yar oo waqti xadidan leh ilaa xiinin ilaa inta adimanayso way marka halka waxaynu ka arkaynaa qisadan iyo faa'iidooyinka ay leedahay oo aad u badan halkaasay noogu joogi hada ma aquluhu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان